السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاريات بندي سلامي مركو غورة سكسو دوادة channel كينا عاد مجيد نتوتو ويك فضنا سبسكرايب صار channel كانت كو عصوب تهي نقول نصو بيرسي أدنو ديريك لسا دعوة ان آدي آد بانون ما سنتهي ان لايك تنهي لاي مركز مقال خدام يستسوس داد بدنو سيقارو انتا كتب دعوة ديال مقال كمان تانا دينيا حيا وحوي ومقال كور رميا سيدا آد uqarin lahayd fariimaha message-ka ama messages-ka ama fariimaha mobile-ka kusoo dhacaya isagoo log gashan mobilkaagu fariimaha shaashada soo dhigaya marka hadda doonayso in aad qariso message-yada soo dhigaya shaashada mobilkaaga ama screen-ka mobilkaaga isagoo log ku jira maxaad sameynaysaa settings-ka mobilkaaga ayaa tagi doontaa marka settings-ka mobilkaaga tagto waxaad ka sii dooran doontaa meesha ku qoran tahay notifications markaad ka sii doorato qaabkan ayuu ku soo saari doonaa marka mobilkayga anu noocan oo kale haduu mobilkaagu yahay aniga mobilkayga notificationski iyo appski baa isla wada socda waa halkan buu soo wada dhigaya marka applicationada kan doonayay inaan waxa weeyaan message-diisa markay soo dhacaan log mobilkayga ku jira inaan la arkin ayuu man halkan ka tigto man ka qaadaya kan doonayay marka kan doono man ka qaadaya marka si aad waxa weey uga qaado kaliya halkaas ma tigto mad ka qaadi blue gum baad ka dhigi doontaa madan bas wax la wax message marka barta ka soo muuqanaya ma jiro mobilkaaga oo isagoo wax weey log iska jiray dadku iska daawanayaan ama iska eegayaan ma jiro marka intaasi ba u dhicin ta halkan bad ka xidhasan haddii hadaba mobilkaagu nooc kale yahay oo iga duwan yahay oo noocan kale aan soo dhigaynin oo application-adii iyo notification-ka aan israacinin hoos baad socon doontaa hoos markaad socoto xagga ugu hooseysa waxa ka sii dooran doontaa notifications marka ka tagto saddex qoraal buu ku soo dhigi doonaa qoraalka ka dhexe ee waxa weey log ay ku qorantay log screen raacsan tahay kaasa dooran doonta halka shaashadan idin soo dhigi doona sawirkee ka dhexda dooran doonta marka ka dhexda marka doorato oo ku soo fato isna saddex option buu leeyahay ka ugu horeeya waxa weey waa show content oo macnaheedu tahay dhammaan message-yada ii soo dhaca halka shaashada mobilkayga waa in la wada arki karo marka cidii soo dirtay iyo message-ka laftiisa wuxuu yahay ayaa halka laga arki karaa oo qofku akhri karaa ka labaad ka dhexduna waxa weey waa hide content-kiga waxa weey isagu wuxuu ka waramaya message-kii meeshii laga soo diray waa la arkay imka saaran WhatsApp-ka message-ka laga soo diray halkaas ku soo dhigaya WhatsApp-kii halkaas ku soo dhigaya laakiin ma garanaysid kartid wuxuu message-kaas yahay iyo cid soo dirtay waa ka labaad ee dhexda ka saddexaad ugu dambeeyana waxa weey wax alla wax message oo halkaas soo dhigayana ma jirto app-kii xataa laga soo diray halkaas soo maayo marka imka kaygan oo aad mobilkaaga noocan oo kale yahay oo saas kale soo dhigayo oo aad ka xidho waxa weey message-yadii fariimaha aad ka xidho app-ka aad doonayso totally wax halkaa soo dhigaya ma jiro dhammaantood wada qarnay marka ka ugu dambeeya do not show all notifications ayaa isagu waxa weey kaasa laakiin ka dhexda ayaa ugu muhiimsan oo hide content iyo waxa macnaheedu yahay message-kii qari laakiin meesha laga soo diray ha qarin imka salaadii WhatsApp-kii laga soo diray ama waxa weey message-ka caadiga fariimaha SMS-kii lagu soo diray halkaas ku soo dhigaya laakiin message-kaas wuxuu yahay cid ma arkayso qofku arki karaa laakiin ma arki karo wuxuu ilaa oo log ka saaro dee dhex kala mooyaan marka intaas weeye daawadayaal intaan ku kulmi doono muuqaalkan mid lamada waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadlan subscribe saar channel-ka naguna soo bir daawade hadaad nagu cusub tahay si aad noo dhiirigelisan like iyo share tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu